بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أمور الدنيا والدين caawa waxaynu ka wada hadlaynaa mowduuc runtii aad u muhiima oo ka hadlaya electromagnetic interference-ka iyo waxa loo yaqaano electromagnetic compatibility. Mowduucani guud ahaan wuxuu ku saabsan yahay intaan technology-ga la saaxiibka ahayn oo waayo technical buu yara badnaan doonaa marka waan ka cudur daaranaynaa dadka qaarkood hadday terminolojiyada iyo waxyaaba fahmi waayaan laakiin waxaan ka codsanaynaa sidoo kale maxamedna inuu si simplification ay dadku u fahmi karaan ugu sharxo. Taasi waa iga kelmadda hordhaca ah in yaroo kooban baan ka sheegi doonaa haddii la idhaha maxamed cali oo ah martida caawa inoo joogta. maxamed cali cilmi waa dadkii golis university hargeysa wax ku bartay. Runtii aniga iyo saalax iyo ladkiisii baanu ahayn. Wuxuu u boqo waxaan odhan karaa waddanka Malaysia waddankaas wax ku bartay kabacdi golis buu haddana mar labaad annagoo joogna noogu yimid oonu ka wada shaqaynay aakhirkiina wuxuu ku dambeeyey waddanka Australia qaaradda ugu baryaysa adduunka taasoo uu 7 sano u dambeeyey uu ka shaqaynayay waxyaabaha electromagnetic interference-ka iyo electromagnetic compatibility-ga la xiriira marka aqoontiisu caawa inooga faa'iideynaya haddii ilaahay idhaahdo. Sessionka markaa wuxuu ku bilaabmi doonaa isaga presentationka samayn doona. Inagu qalinka iyo buugaynu dhiganaynaa iyo dhegtana waynu maalaynaa kabacdina markuu dhammeeyo ayaynu haddii ilaahay idhaahdo su'aalo ka weydiin doonaa markaa saasuu inoogu soo xidhmi doonaa haddii ilaahay idhaahdo. ugu horreyn markaa aan kusoo dhaweeyey maxamed cali cilmi oo aynu marti u nahay. soo dhow maxamed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oo aynu marti u nahay. soo dhow maxamed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واد مهتنتين أخيارتا خضر ودنا سيجارة مهتنت هاي وأديك هذا السيشن كان سو أجاسمي مركا عدكي وهدي وفي عين هاي إيشيغا يا هدي عن كور ويرا قاعدة يا هدان هاسو لغا مركا عدكي وفي عين سما دي محمد عدك قاعد بس عين حقيقة مثلا. اوكي بيرفكت مركا دمانتي وسلامتين مرة بعد waxaan topic-kan baynu ka hadli doonaa oo aan isleeyahay marka dhinac laga eego dhinac kale marka laga eego wuu iska yara adag yahay waanu iska yara xasaasina marmarka qaar uu noqon karaa marka waxaan isku dayi doonaa inaan iska dhigo inaan ku dadaalo inuu noqdo wax la fahmi karo marka dambena waxaan eegi doonaa innaga dal ahaan halka aynu ka marayno iyo dee waxa ilaa hadda inoo qabsoomay marka la eego areadan aynu ka sheekeynayno marka koowaad sida magaca ka muuqatay waxaynu define garayn doonaa bal ereyadan waxay yihiin iyo waxa macnaha looga jeedo sida compliance-ka iyo EMI-da iyo EMC-da marka bal marka koowaad weynin waxa su'aasha meesha ugu habboon la isweydiin karaa waa maxay compliance marka bal marka koowaad weynin waxa su'aasha meesha ugu habboon la isweydiin karaa waa maxay compliance hadad kelmadda root-keeda u fiirsato waa comply waxa weeyaan in waxaasi uu buuxiyey shuruudo loogu talagalay inuu buuxiyo marka uu wixii shuruudihii loogu talagalay buuxiyo ayaa la odhan karaa shaygaasi waa compliant
marka compliance engineering ama compliance in general industry kala duwan buu galaa ma galo oo keliya ta electronic industry oo keliya ma galo electrical iyo electronic industry oo keliya ta maaha laakiin bankinka iyo financeka iyo waxaasi waxay leeyihiin compliance-ka tusaale ahaan wuxuu geli karaa dhismaha oo kale marka dhismayaasha la dhisayo waxaa loo baahan yahay dhismayaashaasi shuruudo inay buuxiyaan shuruudaha markaa cid hubisa iyo si loo hubiyo iyo waxaasoo dhan wixii la xidhiidha waxaa la odhanayaa compliance marka roolkaas wuxuu noqonayaa compliance role buu noqonaya marka inagu specifically haddaynu soo koobno waxayna khuseeya waxa weeyaan compliance-ka la xidhiidha electronic industry-ga ama electronic productska wixii electronics marka inaga scope-keenu halkaas ayuu ku egyahay caawa marka compliance oo dhan kama hadlayno marka haddaan si kale u dhigno electronic product kasta oo la doonayo in la iibiyo ama la soo saaro waxaa loo baahan yahay marka haddaan si kale u dhigno electronic product kasta oo la doonayo in la iibiyo ama la soo saaro waxaa loo baahan yahay productgaasi ama electronic productgaasi inuu buuxiyo shuruudo marka shuruudaha markuu buuxiyo ayaa la odhan karaa waa compliant productgaas markaas baa la iibin karaa adduunka lama iibin karo product aan compliant ahayn oo shuruudihii loogu talagalay aan buuxin marka dal kastaaba dee wuxuu leeyahay requirementskiisa u gaarka ah tusaale ahaan dal walba yaanan odhanin dalalka soo koraya ma laha inta badan oo waxaan kamaba sheekeeyaan laakiin dalalka horumaray reer galbeedka iyo kuwaas iyo indhayarta iyo marka tusaale ahaan meelaha ugu caansan waxaa kamid a US Europe Australia China Japan dalalka tusaale ahaan meelaha ugu caansan waxaa kamid a US Europe Australia China Japan dalalkaas waxay leeyihiin shuruudo ama waxay leeyihiin sharciyo product kasta oo dalkooda lagu iibinayo halkii la doonaha laga soo saara ama dalka gudihiisa ha lagu sameeyo ama meelo kale ha lagu sameeyo product kasta oo dalka la doonayo in lagu iibiyo waxaa loo baahan yahay waxay ka doonayaan inuu shuruudo buuxiyo requirements baa la dhahaa markuu requirementska buuxiyo ayuunbaa la odhan karaa qalabkaasi waa compliant dabeetana markaasunbaa dalkaas qalabkaas lagu iibin karaa marka the whole point waa intaas africa meelo yaryar baa jira dalalka qaar laakiin badankeedu waxyaabaha product regulatory iyo compliance marka waa maxay muhiimaddu haddaynu soo koobno maxaa looga baahan yahay product kasta inay compliant noqdaan ama ay requirementska ay dal waliba samaysteen buuxiyaan waxaa loogu baahan yahay to minimize risks in lagu yareeyo wixii riskiya ka iman kara ujeedada ugu muhiimsan waa intaas waa hagaag marka si haddaba uu dal u yeesho ma garanaysaa uu u hubiyo productga imanaya inay compliant yihiin oo suuqa ama dalkooda lagu iibin karo maxaa loo baahan yahay waxa muhiima oo meesha imanaya waxaa la yidhahdo regulations ama regulatory bodies regulationsku waa sharciyadii iyo shuruudihii iyo wixii lagu kala hagayay qalabkaas regulatory bodieskuna waa ciddii samaynaysay qalabkaas regulatory bodieskuna waa ciddii samaynaysay regulationskaa samaynaysay marka dal waliba tusaale ahaan dalalka badankoodu waxay leeyihiin regulatory bodies ka mas-uula oo hubiya inay productyadaas dalka imanaya inay compliant yihiin macnihii in shuruudihii dalkaasi dhigteen ay buuxiyeen oo dabeetana productgaas lagu iibin kara dalkooda marka usually bodieska ama regulationska ama regulatory bodieska waxaa sameeya dowladaha marka waa government level
waxaa jira oo kale iyaguna qaar international level ah tusaale ahaan qaar UN ta hoostaga tusaale ahaan ITU oo kale ITU ka iyadu waa maxay UN ta hoostaga in this case waxay noqon kartaa regulatory body way leedahay standards bay leedahay iyada qudheeda waxyaabo ITU du ay mas'uul ka tahay ba compliant yahay in la helo regulations iyo regulatory bodies taasi waa number 1 waxaa kaloo isweydiin kartaa maxay regulatory bodiesku ama regulationsku maxay muhiim u yihiin maxay qabtaan why they are so necessary in this domain marka waxay muhiim ka u yihiin waxa weeyaan waxay sameeyaan waxa la yiraahdo standards iyaga ka mas'uulay standards marka standardskuna waa maxay standardskuna waa sharciyadii lagu shaqayn lahaa tusaale ahaan waxaynu sheegnay in loo baahan yahay qalab kasta oo dalka lagu iibiyo inuu yeesho inuu requirements buuxiyo marka requirementskaasi uu buuxiyo dee waa in la taskarayo dowladdu iyo magaranaysa regulatory bodiesku waxay la imanayaan requirementkooday la imanayaan waxay leeyihiin qalabka noocaasa tusaale ahaan fridgekaasi si loogu iibiyo Somaliland waa in ay shuruudaha waa inay testiyadaa soo baastay marka requirementskinu sheegayna waa testis marka standardka ayaa sheegaya testiyada ay tahay inuu qalab kastaaba soo baaso ama uu ka soo gudbo si uu compliant u noqdo okay marka standardsku qudhooda iyaguna waa sidaan sheegi standardska waxaa sameynaya regulatory bodieski international bay noqon karaan regional bay noqon karaan waxay noqon karaan country level bay noqon karaan tusaale ahaan Somaliland baa standards gaar ah yeelanaysa ama tusaale ahaan Venezuela ayaa standards gaara iyadu samaysatay waxay noqon karaan regional standards IEC baa la yiraahdaa international electromechanical something baa loo soo gaabiyey ITU du kuway sameeyaan baa kamid ah marka point-kan haddaan soo ururiyo waxa weeyaan product si loo hubiyo inuu compliant yahay waxaa loo baahan yahay in regulations iyo regulatory bodieski la helo regulationska iyo regulatory bodieski waxay mas'uul ka yihiin standardskii sharciyadii marka standardsku maxay sheegayaan marka standardsku waxyaabo fara badan bay koobsanayaan ama ha noqdaan qaar ma garanaysaa international ama qaar regional ama qaar government level ha noqdaan laakiin waxyaabo ay ka siman yihiin ay define garanayaan baa jira oo maxaa ka mid ah testiyadii la sameeyay nooca testiyada ee la sameynayo boqolaal nooc oo testiyo oo kala duwan baa loo baahan yahay productyada kala duwan electronic productska kala duwan waxay u baahan yihiin testiyo kala duwan bay u baahan yihiin macni maaha product kasta oo jira u baahan yahay macni maaha product kasta oo jira inuu same tests in looga baahan yahay ma waxay ku xidhan tahay applicationka product halka lagu isticmaalayo waxay ku xidhan tahay marketka suuqa la geynayo waxay ku xidhan tahay ma guri baa lagu isticmaalayaa ma dibad baa lagu isticmaalayaa ma gaari baa lagu xidhayaa ma guriga dhexdiisa lagu isticmaalayaa ma school baa isticmaalaya applicationska halka lagu isticmaalay ku xidhan tahay marka standardska waxyaabaha ay sheegayaan waxa ka mid ah nooca testiyada ah ee loo baahan yahay in la sameeyo tusaale ahaan haddaad soo qaadato fridge waxaa laga yaabaa guri kasta inay fridge taala imika oo tusaale ahaan Somaliland ku yaala marka fridge taasi testiyada loo baahan yahay inay baasto si loogu isticmaalo Somaliland ama si loogu isticmaalo Mareykan ama si loogu isticmaalo somewhere else fridge-yada u baahan tahay inay marto oo dhan waxa sheegaya standardka laga eegaya waxa standardka oo kale laga eegayaa sida loo taskaraynayo tusaale ahaan adiga oo tusaale ahaan ku nool US ama qof ku nool Asia ama qof Africa ku nool
haddii uu standardka haysto waa in qalabkii uu taskarayn karo marka detailska oo dhan sida loo taskaraynayo maxaa la taskaraynaya maxay yihiin maxaa looga baahan yahay requirementska ama limits baa la idhahdaa haddaynu bal si deeply u eegno tusaale ahaan waxaa la eegayaa emissionska ka imanaya barodha gas waxaa inta badan loo yaqaanaa radiated emissions waa emissionska ka imanaya barodhaga ama electronic barodhaga ka imanaya tusaale ahaan waxaa la eegayaa emissionska ka imanaya barodha gas waxaa inta badan loo yaqaanaa radiated emissions waa emissionska ka imanaya barodhaga ama electronic barodhaga ka imanaya marka standardka aad isticmaalaysay ku xidhan tahay standardkaasi tusaale ahaan sispra markuu yahay sispra 32 baa la idhahdaa sispra 32 iyo kale tusaale ahaan markuu yahay engineer kasta oo adduunka meeshuu doonaha joogo uu og yahay sispra 32 waxyaabaha ay waajibinaysa in la taskarayo radiated emissions conducted emissions marka ma doonayo inaan deeply usii dhex galo waxyaabahaasi way yara complicated laakiin waxaan ujeedaa waa maxay kow haddaan soo koobo marka koowaad barodhagu siduu compliant u noqdo oo loogu iibiyo dalkii loo baahnaa waxaa loo baahan yahay regulatory bodies ama regulatory bodieskaas ama regulationska waxay samaynayaan standardskuna waxay define garaynayaan wax kasta oo loo baahnaa barodhagaasi inuu lahaado si dalka loogu iibin karo dalka la doonayo loogu iibin karo marka marketyadu qudhadu yar kala duwan tusaale ahaan waxyaabaha qaar maraykanku ay gaar ugu baahan yihiin baa jira waxyaabaha qaar yurub ay gaar ugu baahan tahay baa jira tusaale ahaan dalalka kalena waxaa laga yaabaa qaar bay si gaara ugu sii baahan yihiin marka waxyaabahaas oo dhan inaad eegto weeyaan as a compliance engineer okay marka standards maxay sheegaa waan yidhi kow tastiyada la samaynayo noocay yihiin waxyaabaha loo baahan yahay qalab kasta markaan leeyahay waxaan ujeedaa qalabadu way kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa qalabka electronicska marka aynu maqallo in aynu u qaado ama computer laakiin electronic productsku intaa way ka fara badan yihiin waxaa jira electronic products lagu isticmaalo baabuurta iminka baabuurka waxaa la idhaahdaa waxa weeyaan waa computer leh tayro marka dee qalab badan oo waxa ku xidhan electronics sababta loo leeyahy waa sidaas waxa ku xidhan communication systems baa ku xidhan navigation systems baa ku xidhan waxaas boqolaal nooc oo waxa ku xidhan oo electronic products marka qalabka lagu xidhayo gawaadhida iyo wixii la xidhiidha qalab badan oo electronics waxaa jira loo isticmaalo for medical applications dhakhtarada isbitaalada waxaas dhan qaliimada indhaha scanninka wixii lagu sameeyo oo dhan medical scanninka wixii lagu sameeyo oo dhan medical electronicsku isaguna waa industry badan weeyaan electronics badan baa loo isticmaalaa militariga electronics badan buu isticmaalaa oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan communicationka ay militariga iyo navygu isticmaalaan waxaa kaloo meesha ku jiri karaa telecom industrygu electronicska isticmaalaan iyo radioyada radio engineeringka ama railwayga tareenada waxaasoo dhan marka waxaynu ka hadlaynaa markaynu sheegayno electronic compliance markaynu ka hadlayno waxaynu ka hadlaynaa maaha telecommunication oo keliyata laakiin waa any electronic product meeshuu doonaba ha galo waa lagaga dabagelayaa waa la hubinayaa inuu compliant yahay waa hagaag marka iminka standardskii baynu isla fahnay oo aynu sheegnay waxay ka kooban yihiin waxa kale ka kooban yihiin oon malaha aana sheegin limits tusaale ahaan iyagaa sheegaya requirementkaasi barodhagaasi tusaale ahaan marka la taskireeyo yaa odhan kara barodhagaasi wuu baasay ama wuu fail garoobay yaa odhan kara waxaa laga eegayaa waxaasoo dhan standardka laga eegaya tusaale ahaan barodhag baa taskiraysay waxaad tiri hubi inuu magaranaysaa compliant yahay iyo in kale
waxaad ka eegaysaa dee adigu iskama odhanaysid wuu baasay ama muu baasin iskama odhanaysid laakiin waxaad ka eegaysaa wuxuu leeyahay standardku wuxuu ka kooban yahay waxa la yidhaahdo limitskaas baana sheegaya inuu ama baas yahay ama fail yahay wixii actual measurementkii aad heshay ayaa waxaad barbar dhigaysaa standardku limitska uu sheegaya barbar dhigaysaa marka haddii ay isla ekaadaan ama the actual measurementku ay ka yaraato isla ekaadaan ama the actual measurementku ay ka yaraato markaasoo kale qalabkaasi wuu baasay macnaheedu waxa weeye tastigaa aad samaysay uu ka gudbay oo macnaheedu wuxuu noqonayaa waa compliant haddii actual measurementkii aad samaysay markii aad qalabkii caadi u cabirtay uu ka batay uu emissionskii kuusoo baxay ay ka bateen wixii ku yaalay standardku uu sheegayay uu ku yaalay ama uu standardku mandate gareynayay ku yaalay in that case waxaad oranaysaa markaa productgaasi muu baasin uu filgaroobay baad leedahay regulatory bodiesku waxa kale oo ay marka laga yimaado standardska markaa standardska iyaga samaynaya standardska waxaasoo informationa koobsanaya waxaa laga doonayaa in regulatory bodiesku dee ay hirgeliyaan waa wax la taskaraynaya yaa taskaraynaya tusaale ahaan ma anigii khadar baa taskaraynayna ma saalax baa taskaraynaya qof waliba dee ma shirkadaha qalab kale baa taskaraynaya odhanaya waanu taskaraynay waxaa loo baahan yahay halkan independent test houses marka adduunkana waa very common waa business aad u weyn weliba dalalka dee horumaray waa business aad u weyn oo dee boqol oo malaayiina inuu dal kastaaba leeyahay meelo wax lagu taskarayo oo ama dee dowlad ha lahaato ama private mainly private baa loo leeyahay laakiin waa inay jiraan test houses meelo wax lagu taskarayo marka meeshaasi usually waxay haystaan qalab expensive waxay haystaan test engineers bay haystaan leeyihiin waxay garanayaan procedureka wax loo taskaraynayo iyo processeska la marayo marka waa business dhan wey marka test houseskaasi waxa shahaadada siinaya ogolaanshaha inay wax taskareeyaan waxa siinaya regulatory bodieska odhanaya test house x waxa weeyaan waa certified test house marka certificate baa la siinaya usually it's 2 years every 2 years waa la cusboonaysiinaya qof bay soo dirayaan markaa regulatory bodiesku test houseka tegaya oo odhanaya oo eegaya test housekan wax taskareeya inuu shuruudihii looga baahnaa buuxiyey dabeetana waxa isaga test houseka laftiisa certificate la siinaya 2 sano lacagna dee way bixinayaan definitely marka waxaa lagu odhanaya waxaasoo dhan tusaale ahaan waa taskarayn kartaan certified baad u tihiin marka waxaa lagu odhanaya waxaasoo dhan tusaale ahaan waa taskarayn kartaan certified baad u tihiin waxa ama taskarayn kartaan waad magaranaysaa inaad ilaa aad shuruudaha kala buuxisaan marka tasihaasyaduna dee si ay scope-kooda u ballaariyaan iyaguna sanad kasta wayse sii ballaarinayaan si ay waxyaabo badan qalab badan u taskarayn karaan okay marka waxaynu sheegnay haddaan kusoo celiyo haddaan soo dul maro mar labaad regulatory bodiesku waxay mas-uul ka yihiin 2 arrimood waa standardska oo sheegaya sida wax loo taskaraynayo waxa la taskaraynayo informationkaasoo dhan iyo yaa wax taskaraynaya oo aynu sheegnay inuu yidhi waa test houseski haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso waa maxay testiyadan aad ka sheekaynaysaa ama testiyadani maxay yihiin testiyada electronic productska marka aynu si guud u eegno laba meelood baa loo qaybiya laba dhinac oo ah waxa la yidhaahdo function iyo compliance test marka functional testigu waa wixii la xidhiidha waxaa la eegayaa qalabkani ma shaqaynaya tusaale ahaan dee product kasta marka la sameeyo waxaa la eegayaa inuu qalabkani shaqaynayo haddaanu shaqaynayn de macnaheedu waxa weeye waxbaa ka khaldan ma dhammaystirna marka waa in functional test lagu sameeyo tusaale ahaan haddaad wifi router hadduu yahay
dee waa inuu signalkii ku siinayo wifi signalkii ku siinayo waa functional testigii laakiin inagu taynu caawa ka hadlaynaa ma aha functional test ma waa waxa loo yaqaano compliance test yani compliance testigu waxaa laga yaabaa iminka wifi routerka aynu sheegayno isagoo signalkii ku siinaya oo signalkiisii fiican yahay oo hagaagsan yahay waxba ka khaldanayn ayaanu haddana compliance testiga markaynu nimaadno inuu fail garoobo ama aanu baasinba suuragala wax kalena ma aha compliance waxa weeye waa shuruudo lagu wax kalena ma aha compliance waxa weeye waa shuruudo lagu xadidayo borodhagani intee in la eg tusaale ahaan emissionskiisu ay noqon karaan marka compliance testigu waa sidaas compliance testigu lama xidhiidho shaqada qalabka lama xidhiidho tusaale ahaan haddii la doonayo satellite-kaasi inuu magaranaysaa power transmissionkiisu uu noqdo 50 dBm waa inuu 50 dBm iyo wax ka hooseeya noqdo compliance testiga laakiin functional testigu as long as wuxuu shaqaynayo waa fine waa okay qalabkii hadduu shaqaynayo it's fine laakiin compliance testigu sidaa maaha compliance testigu aad buu uga xadidan yahay marka waxa weeyaan requirementka standardka ku yaala ama dowladdu ay doonayso in uu comply gareeyo ayaa la doonayaa testigan inuu comply gareeyo qodobka labaad waxa weeyaan compliance-ku guud ahaan markaynu sidaa u sheegno compliance-ku guud ahaan muxuu compliance-ku muxuu ka kooban yahay maxaa la taskaraynaya maxaa la cabiraya actual measurement waxaynu sheegaynay laakiin maxay tahay actual measurement waxaa laga yaabaa ilaa hadda inaad ku yara dawaqsan tihiin what kind of test is this maxaa la cabiraya actual measurementku maxay tahay waxyaabahaas marka haddaynu soo koobno compliance guud ahaan saddex area oo waaweyn weeyaan markii when it comes to electronics electrical and electronics waa marka koowaad waa wixii la xidhiidha EMI compliance macnihi waa electromagnetic interference waata aynu socono caawa oo waxa weeyaan qalabka waxaa la eegayaa emissionska ka imanaya oo waxa weeyaan qalabka waxaa la eegayaa emissionska ka imanaya si fudud haddaan u sheego emissionska ka imanaya qalabkaasi in heerkii loogu talagalay uu yahay ayaa macnaheedu waa saas oo kale waa in qalabkan tusaale ahaan waxaynu iibinaynaa wifi router ama waxaynu iibinaynaa fridge ama waxaynu iibinaynaa tusaale ahaan waxaynu iibinaynaa satellite terminal whatever emissionska ka imanaya marka la cabiro marka la power gareeyo qalabkii la shido ma garanaysaa la operate gareeyo sida marka caadiga ah loo baahan yahay uu u shaqaynayo ayaa waxaa la cabirayaa emissionska ka imanaya marka emissionska ka imanaya waxa standardska aanu sheegayna waxay sheegayaan inaanu heer kaa dhaafin marka dee waad garanaysaa waxaa lagu cabirayaa special equipments like spectrum analyzer qalabka ugu muhiimsan la isticmaalo waa spectrum analyzer marka laga yimaado softwarada iyo anteenooyinka iyo waxaas marka waxaa la qabanayaa qalabkan shaqaynaya ee sidii loogu talagalay u shaqaynaya emissionska ka imanaya halkii loogu talagalay ma joogaan may ka sarreeyaan mise way ka hooseeyaan marka compliance-ku waa qaybtaa la xidhiidha emissionska oo la yidhaahdo EMI waxaa kaloo jirta qayb la yidhaahdo safety compliance iyo qayb saddexaad oo la yidhaahdo environmental compliance marka labadaa qaybood kale imika ma aha topiga aynu doonayno inaynu ka hadalno maaha waqti badan uma hayno laakiin EMI-du baynu si gaara uga hadlayno marka safety-gu waxa weeyaan tusaale ahaan iyaduna laakiin dee waa absolutely waa important way oo marka dalka compliance-kiisa laga hadlayo qalabka dalka lagu iibinayo in safety-gooda la hubiyo electrical safety ka compliance-kiisa laga hadlayo qalabka dalka lagu iibinayo in safety-gooda la hubiyo electrical safety markaan leeyahay safety waa electrical safety-gooda in la hubiyo waa absolutely waa necessary way tusaale ahaan marka aad soo iibsato microwave oven ama aad fridge soo iibsato
ama aad heater guriga soo dhigato markaad dabka geliso haddii uu ololo ka war yani safety compliance waxay taskaraynaysaa waxay hubinaysaa inuu qalabkaasi marka la isticmaalo aanu dadka ama guryaha ama waxaas ama meesha kale lagu isticmaalayo inaanu waxba yeelin marka qalab badan ood aragteen laga yaabaa inay dee safety testi ay soo mareen ta kale iyaduna saddexaad waxa weeyaan ee compliance-ka ahi waxa weeye environmental oo iyadu qalabka qaar bay ayay ku tahay applicable waxaynu isla garanaynaa qalabka lagu isticmaalo dee gawaadhiguu socdaa markabka iyo diyaaraddii waxyaabahaas way socdaan marka maadaamay socdaan waxay samaynayaan gariir ama socod ama shaking bay samaynayaan marka environmental compliance-ku wuxuu hubinayaa inaanay qalabkaasi tusaale ahaan marka meeshii loogu talagalay lagu isticmaalayo inaanay kala shajabin tusaale ahaan haddaad satellite terminal aad samaynayso ama brodhigaagu satellite terminal yahay oo aad markab badda taagan ku xidhay markabka badda taagan markaad ku xidhay ee uu markabkii socdo haddii uu qalabkii kala jajabo ka war yani compliance-kaasaa la hubinaya marka environmental compliance iyo safety compliance labadaas iminka ma faahfaahin karno laakiin waxaanu ka sheekeynaynaa oonaynu hadal hayno waa maxay waa EMI compliance ama emissionska wixii la xidhiidha laakiin dee sidaasay muhiim u yihiin oo dal ahaan tusaale ahaan la isticmaalayo dhan ama safety ha noqoto ama EMI ha noqoto ama environmental compliance ha noqoto waa in la hubiyo in ay dee all these magaranaysaa jaranjarooyinka ay soo mareen I think waqtiga ay eriyanaya markaa iminka waan yara dedejin doonaa waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso why loo samaynayaa why electronic products has to be compliant ama electronic productsku maxay qasab u tahay inay compliant noqdaan ama maxaa tastiyadan loo samaynaya waynu dul marnay markii hore waxaynu nidhi to minimize risks si loo yareeyo khataraha ka iman kara khatarahaas markaa way kala duwanaan karaan waxay noqon karaan health qaar la xidhiidha xagga caafimaadka oo maybe in badan inaad maqasheen dee aad magaranaysaa mediaha iyo meelahaba ka aragteen ama dad badan inaad maqasheen dee aad magaranaysaa mediaha iyo meelahaba ka aragteen ama dad badan dee mainly engineer aad tihiin oad og tihiin in tusaale ahaan in badan laga sheekeeyo oo la yidhaahdo telefoonada iyo taawaradu waxay keenaan brain tumor bay keenaan ama maskaxda cancer bay keenaan ama magaranaysaa power lineska high voltage power linesku waxay keenaan magaranaysaa cancer bay keenaan doodahaas oo dhan iyo muranadaas oo dhan waa laga yaabaa inaad maqashay ama waynu wada maqalayba marka si waxyaabaha at least loo yareeyo ayaa sababtan product inay compliance loo encourage garanaya ay tahay marka waa arrimaha caafimaadka wixii la xidhiidha markaynu ka hadlayno safety compliance waxa weeyaan wixii la xidhiidha safety-ga tusaale ahaan waan imika tusaale soo qaadanay lahayn haddii marka aad qalab soo iibsateed dabka geliso oo markiiba kugu qarxo ama ama qalabkiiba marka taabato uu kugu dhego waa wax la xidhiidha safety compliance la xidhiidha oo dee waxaas imika tusaale ahaan haddii aan brodhaga marka la sameynayo aan grounding saxa loo samaynin waxaa laga yaabaa markaad dabka geliso haddaad jaasiska taabato ama qolofta sare kiiska sare haddaad taabato inuu kugu dhagaa laga yaaba marka si waxaas oo dhan looga hortago ayaa dee tasdiyadan loo waajibiyey tusaale ahaan oo kale waad aragteen diyaaradaha markaad raacdaan waxaa la yidhaahdaa moobilada baktiya waayo waxaa laga baqayaa in emissionska tusaale ahaan rf emissionska uu mobilku dirayo ama receive garaynayo inay interference ku sameeyaan systemka diyaaraddu ay isticmaalayso oo diyaaraddu dee waxay isticmaalaysaa communication system rf signals iyo waxaasay isticmaalaysaa marka labadaas inay is-cancel gareeyaan ama is-jam gareeyaan ayaa suuragal is-cancel gareeyaan ama is-jam gareeyaan ayaa suuragala dabkan yara gashanayaa yariga okay sorry marka
ahamiyaddu waxa weeyaan marka loo hubinayo ama qalab kasta oo la isticmaalayo electronics loo hubinayo inuu compliant noqdo waxa weeyaan dee waa sababahaas waa wax la xidhiidha safety-ga guriga oo kale qalabka lagu isticmaalayo tusaale ahaan routerka guriga waa laga yaabaa almost every house dee waxa yaala wifi router yar baa yaala kolley minka siday u badan tahay nowadays qalab kaloo badanna way yaalaan fridge baa taala washing machine baa yaala markay ugu yar tahay intaasoo saacadood oo electronics baa yaala intaasoo magaranaysa mobile iyo telefoonna iyo commissionskooda in la hubiyo oo mid kasta la ogaado inuu ka hooseeyo heerkii loogu talagalay iyaduna waa very important marka sababaha loo sameynayo compliance inuu qalabkii dalka la keenayo uu compliant noqdo waa sababahaas iyo dee qaar badan oo kale oo aad idinkuba aad ogaan kartaan haddii aad baadhaan okay haddaan hore usii yaro socdo waxaynu ka sheekeynay compliance-ka iyo waxyaabahaas bal waxaynu eegi doonaa qayb kale oo iyaduna ka mida EMI-da waxaynu nidhi compliance-ku 3 area weeyi mayna waa EMI compliance iyo safety compliance iyo environmental compliance marka productyadu way ku kala duwan yihiin almost all productsna waa loogu talagalay inay compliance-yada maraan inay testiyada ama checkingka noocaas inay maraan inay testiyada ama checkingka noocaas inay maraan marka qaybta aynu imika eegayna waxa weeye ama iyaduna muhiim ahoo weliba in badanna aad maqasheen iyadoo laga doodayo waxa la yidhaahdo EMR waxa weeyaan electromagnetic radiation way ka yara duwan tahay markaynu soo eegno tii hore laakiin haddana way hoos imanaysaa EMI unbay ka mid tahay laakiin haddana iyada si gaara waxaa loo yidhahdaa EMR ama waxaa kaloo la yidhahdaa radiation hazard muhiimadduna waa maxay sheegaysaa tusaale ahaan waxay la xidhiidhaa qaybtii hore ka sheekeynayna waxay la xidhiidhaa mainly electronicska in general marka electronicska wax kasta oo dab la geliyo ama bayteri ha ku shaqeeyo ama ha ku shaqeeyo EMR2 ama electromagnetic radiationku wuxuu specifically la xidhiidhaa waxa loo yaqaano high power transmitters qalabka electronicska ah ee high power transmitterska ah ama transceivers haddaan sidaa u dhigo waa qalabka powerka ay wax ku transmit garayaan ama ku receive garayaan uu sareeyo maxaa ka mid a waxaa ka mid noqon karaa satellite systemska waxaa ka mid noqon karaa radar systemska ka mid noqon karaa waxaa ka mid noqon karaa telefoonada wixii la xidhiidha taawarada 3G LTE 4G 5G whatever waxaas oo dhan marka kuwaas iyagu dee waa electronics laakiin waxay electronicski kaga sii xag jiraan iyagu waxay leeyihiin high power transmission waxaa kaloo loo baahan yahay wax kaloo soo hoosgeli karaa qaybtan wax kaloo soo hoosgeli karaa waxaa la yidhaahdo high voltage power lineskan dabka qaadee caadiga ah ee iyaguna guryaha iyo dusha mara iyagana waxaa la aaminsan yahay inay magnetic field xoog badan leeyihiin electric field ma laha laakiin waxay leeyihiin magnetic field aad u xoog badan oo dadka dhibi karta ama problems keeni karta marka radiation hazard ama EMR magacyo kalena way sii leeyihiin dalalka qaar ay lasii baxbaxaan iyo standardski wax laakiin waxay la xidhiidhaa qaybtani sidaynu sheegnay qalabka high power transmissionka leh ee ay satellite-ka iyo radarka iyo telefoonada mobilada iyo taawarada iyo waxaas ay ka mid yihiin iyo xadhkaha high power voltage qaada oo iyaguna la aaminsan yahay hoos soo dhaadhacno bal waxaa laga yaabaa radiationka markaynu ka hadlayno guud ahaan markaynu ka hadlayno waxaa loo qaybiyaa laba nooc waad maqasheen baa laga yaabaa si fiican ionizing iyo non ionizing ionizingku isagu aad looma isticmaalo waxay lagu isticmaalaa un meelaha
dhakhtarada iyo waxyaabaha scanning marka x-rayga iyo wixii kasii sareeya marka iyagu isticmaalkoodu waa xadidan yihiin waxaana la aaminsan yahay haddii ay bodiga bini'aadamka ku dhacaan inay cells badan mar keliya dili karaan marka iyada khatartoodu way sareysaa okay taa halkaa inoo dhig iyada taa muran kama taagna in haddii ay in badan kugu dhacaan inay wax ku yeeli karaan nooca labaad waxa weeyaan non ionizing waana nooca ugu badan ee communicationka iyo electronicska waxaan oo dhan ay isticmaalaan marka non ionizing waxaa la aaminsan yahay haddii cellska bini'aadamka ku dhacaan iyagu nooca labaad waxa weeyaan non ionizing waana nooca ugu badan ee communicationka iyo electronicska waxaan oo dhan ay isticmaalaan marka non ionizing waxaa la aaminsan yahay haddii cellska bini'aadamka ku dhacaan iyagu inaanay si degdega sida kuwa hore oo kale aanay cells fara badan oo jirka bini'aadamka aanay mar keliya wada dili karin okay laakiin kuwan laba dhinac baynu ka eegaynaa kow waana kuwa dee mainly la isticmaalay sidaynu sheegnay oo wax kasta loo isticmaalayo marka laba arrimood baa muhiima waa kuwa loo sameeyey limitiskan aynu sheegayna ee ay dowladaha iyo regulatory bodieska iyo ay mas-uulka ka yihiin ay hubiyaan in non ionizingkaasi ayna dhaafin heerkii loogu talagalay tusaale ahaan waxay leeyihiin standards tusaale ahaan ICNIB standard haddaad waad aragteen ba laga yaabaa waxa weeyaan standards tusaale ahaan ICNIB standard haddaad waad aragteen ba laga yaabaa waxa weeyaan international non radiation association ICNIB baa loo soo gaabiya ICNIRB standardka waad eegi kartaan haddaad google garaysaan you can download freely so iminka kaasoo kale wuxuu sheegayaa ICNIB standardkaas waxay sheegayaan the limits bay sheegayaan marka laba arrimood baa ka dhalanaya non ionizing radiationka laba arrimood baa ka dhalanaya kow productga tusaale ahaan aynu haynaynu ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa product x waxaynu ka hadlaynaa wifi router waxaynu ka hadlaynaa satellite terminal waxaynu ka hadlaynaa magaranaysaa modem whatever haddii limitiskii loogu talagalay marka la cabiro limitiskii loogu talagalay standardku sheegaya haddii uu ka sarreeyo la cabiro ee la taskareeyo haddii limitiskii loogu talagalay uu ka hooseeyo taasina waa dood kale marka dooda koowaad waa maxay haddii limitiskii loogu talagalay uu ka sarreeyo waa laysla og yahay inuu khatar yahay oo aan la isticmaali karin tusaale ahaan product baynu haynaa tusaale ahaan waxaynu haynaa vsat-kii baynu cabirnay limitiskiisii baynu standardka ka eegnay waynu isbarbar dhignay actual measurementkii aynu samaynay signalka aynu ku samaynay iyo kii standardkii aynu isbarbar dhignay actual measurementkii baa ka sarreeyey kii magaranaysa standardku yaalay productgaasi non compliant way macnaheedu waxa weeyaan productgaasi ama satcomkaasi vsatkaasi wuxuu ka sarreeyaa measurementkiisu wuxuu ka shareeyaa tii standardku ka shareeyaa ama uu exceed garay uu dhaafay in that case measurementkiisu wuxuu ka shareeyaa tii standardku ka shareeyaa ama uu exceed garay uu dhaafay in that case markaana waa laysla ogyahay inay khatar tahay oo xataa haddii ay dhacdo in qalab noocaasa la isticmaalayo dowladuhu ganaax iyo arrimo waaweyn baa ka dhasha ganaax baa ka dhasha xadhig baa ka dhasha waxaasoo dhan baa ka dhasha haddii la ogaado product loogu talagalay inuu limitkaas ku joogo haddaad dhaafiso ciddii isticmaalaysa ciddii samaysay cidda iibsatay cidda wadata ganaaxiyo iyo waxaa ka dhalanaya iyo dee arrimo kale oo sharciya markaa layskuma hayo haddii limitka la dhaafo inay khatari jirto layskuma hayo okay haddii uu limitka ka hooseeya ka war marka that's another dood kale weeye dooda kale ee aan isidhi malaha iminka dee aad looga dooda waxa weeye tusaale ahaan waa la aaminsan yahay productga gali tusaale ahaan limitiskii loogu talagalay ama loo sadgareeyey uu ka hoos tusaale ahaan expand transmit garanaya 10 gigahertz or 7 gigahertz or whatever haddii limitiskii loogu talagalay uu ka hooseeyo ama uu ku taagan yahayba industry ahaan ama tusaale ahaan compliance ahaan waa sax oo waxaa loo dhahay productgaas uu baasay
waa okay wuu shaqaynayaa waa sax wey laakiin doodu halkii ka taagantay haddana waa halkaas marka innaga waad aragteen iyadoo la doodayo la leeyahay taawaradani dhib bay leeyihiin laakiin marmarka qaar markaad u fiirsato halkay doodu ka socoto meel aan ahayn ba laga doodayaaba oo waynaga kala qaadnay waxaanu nidhi kow marka koowaad waa ionizing iyo non ionizing ionizingka la iskuma haysto muran kama taagna dee inuu dhib keeni karo haddii aad loo isticmaalo lamana isticmaalo oo meelo gaar oo dhakhtar iyo waxaasa lagu isticmaalaa iyo research iyo wax noocaas loogu talagalay non ionizing aad loo isticmaalo lamana isticmaalo oo meelo gaar oo dhakhtar iyo waxaasa lagu isticmaalaa iyo research iyo wax noocaas loogu talagalay non ionizingka ayaynu laba u kala qaadnay waxaanu nidhi waa marka koowaad waa inuu marka koowaad waa inuu above the limit haddii limitkii loogu talagalay standardku sheegaya uu ka sarreeyo iyo haddii uu ka hooseeyo haddii uu ka sarreeyo iyadana waa la isla garanayaa dhibaata jirta problem baa jira ama waxaa jira compliance issue baa jirta waxaa laga yaabaa ciddii hawshaa ku kacday inay ganaax iyo magaranaysaa ciqaab inay mudato laakiin haddii uu limitkii loogu talagalay kaba hooseeyo tusaale ahaan waxaa laga yaabaa qalabka waxaa looga baahnaa 10 watt per meter square 10 watt per meter square power densitygiisa qalabkaas intaasaa loo baahnaa haddii uu yahayba ka waran 9 dB per meter square power densitygiisa uu ka hooseeyaa waa compliant marka industry ahaan la eego wuu iska cusub yahay iminka waxaa laga yaabaa last 30 years ama unbaynu dee wax waliba ay electronic based noqdeen laakiin dee qarniyo hore lama isticmaali jirin electronics marka waxay leeyihiin dad badan oo dhakhtaraa iyo dad researchers waxay leeyihiin qalabkan aynu inagu leenahay waa safe totally safe ba maaha marka waxaa laga yaabaa 40 sano ama 50 sano kabacdi inay iminka qofku isaga oo tusaale ahaan 10 jira markuu mobil qaato ee uu noloshiisa oo dhan ilaa 80 jir ama 60 jir uu mobil sito dee mobilku safe ba ahaado industry standardkii ha meet gareeyo ha baaso laakiin haddana it can cause the problems bay keeni karta marka taasi waa yara complicated waan iska dhaafi doonaa haddaad su-aale hadhow haysaan waa halkeeda waxaa kaloo aynu yaro dulmari doonaa tusaale ahaan bal haddii aynu ka hadalay radiationka mobilada oo kale tusaale ahaan loo baahan yahay dal kastaaba mobil kasta oo imanaya dalkiisa wuxuu hubiyaa inuu compliant yahay isaguna markaa mobilada iyo computerada iyo dee electronic product bay soo hosgelaya weliba waxay noqonayaan dee babel ula bay noqonayaan waayo waynu loo noolahay waxyaabahaas isticmaalkooda aad buu badan yahay marka mobilada tusaale ahaan qalabka waxaa jira standards ama qaab loo hubiyo in mobilku uu yahay magaranaysaa compliant marka waxaa jira standards loogu talagalay mobilada si gaara haddaynaan u odhanba waxa weeyaan waxaa la odhanayaa qalabka tusaale ahaan loogu talagalay ama lagu isticmaalo jidhka bini'aadamka haddii ay u jiraan 20 centimeter haddii aan si kale u dhigo haddii qalabka electroniga ahi 20 centimeter haddii aan si kale u dhigo haddii qalabka electroniga ahi uu jidhka bini'aadamka u jiro 20 centimeter marka la isticmaalayo waa inuu testiyo gaara u baaso because waxaad halkan ka garanaysaa qalabkaasi aad buu jidhka ugu dhow yahay waxaa laga yaabaa fridgeta inay dee ku jirto dhowr tallaabo ama ay madbaqa un iska taalo laga yaaba marmar un inaad wax kala soo baxdo laakiin mobilku dee markaad ku hadlayso dhabanku ku saaran yahay markaad socoto jeebku kugu jiraa markaad hurdugu ku agyaala hadduu doono marka khatartiis way kasii badan tahay marka mobilada tusaale ahaan iyo wixii la xidhiidho kale qalab kalena uu jiraayo tusaale ahaan iyaguna marka la isticmaalayo jidhka bini'aadamka 20 centimeter iyo wax ka yar u jira marka kuwaas u soo hosgelaya kuwaasi haddaba ama waxaa la yidhahdaa specific absorption rate specific absorption rateku wax kala ma hubiyo wuxuu hubiyaayo keliyata in rf energyga uu bodigu soo nuugayo ay ka yaraato level
marka waa test aad u adag waxaana sameeya inta badan testiga noocan oo kale ah waxaa sameeya kambaniyada telefoonada sameeya iminka apple oo kale definitely way samaynaysaa SAR test way samaynaysaa marka way adag yihiin other way jiraan meelo de si independent u taskareeya laakiin mainly de shirkadaha telefoonadu waxay leeyihiin testiyo noocan oo kale ah oo lagu hubiyo in qalabka ama mobiladu ay compliant yihiin marka laba standard baa jira tusaale ahaan oo kale Maraykan waa 1.6 watt per kilogram mobiladu ay compliant yihiin marka laba standard baa jira tusaale ahaan oo kale Maraykan waa 1.6 watt per kilogram waxa loogu talagalay marka la cabiro ma garanaysaa saarka marka la cabiro in uu noqdo inaanu ka badan Maraykanka oo kale 1.6 watt per kilogram salaano kale madaxa laga cabiraya qofka meelahan dhexdana waa laga cabiraa marka qofku jeebka ku jiro kale la simulate garaynaya I think Europe oo kale waxa weeyaan 2 watt per kilogram 2 watt per kilogram ayaa iyadana marka labada standard marka aad uma kala foga 1.6 iyo 2 inaguna dal ahaan de dalka kalena intaasun bay ku faylaan qaarna in yar bay ka yar duwaan intaas kama fogaadaan marka waxaa la aaminsan yahay in haddii mobilka markaad isticmaalayso la cabiro haddii ay 1.6 ama 2 ay tahay watt per kilogram hadday tahay waa safe laakiin hadday intaa ka badan tahay macnaheedu waxa weeye jirkaagu ama seliska bodygaagu waxay consume garanayaan waxay isticmaalayaan oo nuugayaan RF energy aad u fara badan marka hadduu intaa ka bato mobilkaagu tusaale ahaan marka la cabiro they definitely you will be at risk marka saarta marka telefoonada iyo qalabka la xidhiidha ee jirka bini'aadamka aad ugu dhow SAR test waa inay maraan si ay compliant u noqdaan waxaa kaloo laga yaabaa inaad isweydiiso how about the taawarada bal ka war taawarada qudhooda waa la taskarayaa moduleska dee tusaale ahaan anteenooyinka iyo waxa kale power systemska ku xidhan iyo modemiska iyo waxaasoo kale si gaara individually loo taskaraynayaa laakiin haddana markii wixii oo dhan la rakibo waxa kale power systemska ku xidhan iyo modemiska iyo waxaasoo kale si gaara individually loo taskaraynayaa laakiin haddana markii wixii oo dhan la rakibo uu tower halka ku yaalo isaga qudhiisa waa la taskarayn karaa anteenooyinkiisa iyo transmission powerkiisa iyo waxaas iyadoo la eegayo powerka uu wax ku transmit garaynayo marka sida loo taskareeyo waxa weeye power tusaale ahaan si loo hubiyo inuu compliant yahay waxaa la samaynayaa qalab gaaraa la isticmaalayaa oo la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa RF meter ama RF probe marka laba qaybood buu ka kooban yahay qaybi waxa weeye qaybta RF energy-ga ka imanaysa towerka receive garaynaysa oo waa detector oo kale dabeetana qaybna waa screen oo kale macnihii waa qalab aad u yar oo portable ah oo gacanta lagu hayn karo marka waad isku xidha ama shaashad kaa tusaya signalskii towerka ka imanayay buu kaa tusaya marka haddii intii loogu talagelay uu yahay yes hadduu ka sarreeyo yes there's the issue there will be an issue marka halka sidee loo cabirayaa waa lagu warwareegaya towerkii dhinacyo kala duwan baa laga cabiraya waxaa loo jirsanayaa 10 mitir minimum ilaa 200 mitir intaasoo udhaxayso dhan baa kolba meel la istaagaya la meeshar garaynaya mainly sheekooyinkan waxay dhacaan ama towerada wax la cabiraayo measurementka noocana la sameeyaa marka ay cabashi jirto haddii tower halka ku yaala laga soo cawdo waa in measurementka noocan oo kale la sameeyo marka maxaa la cabirayaa waxaa la cabirayaa 3 arrimood baa la cabiri karaa kow power density-ga ayaa la cabiri karaa standardadu way sheegayaan inta requirementka loo baahan yahay inaanay waxaa la odhanaya tusaale ayaa la cabiri karaa standardadu way sheegayaan inta requirementka loo baahan yahay inaanay waxaa la odhanaya tusaale ahaan power density-ga towerku marka loo jiro 150 mitir waana intaa ka badan ani waa la isbarbar dhigaya marka actual measurementkii iyo tii standardka la isbarbar dhigaya sometimes marka qaar waxyaabo calculation la samaynayaa because
waxa loo baahan yahay frequency-yadii baa kala duwan oo waynu ognahay iminka tusaalahaan towerka dee frequency kala duwan tusaalahaan hadduu 2G yahay 3G yahay 4G yahay 5G hadduu yahay range of frequencies buu ku shaqaynaya marka sometimes manual calculations baa la samaynaya marka power density-ga la cabiri karaa electric field-ka la cabiri karaa magnetic field-kana waa la cabiri karaa depending on qalabkaad haysato haddaad qalabkaad haysataa intaba kuu samayn karo power density is the best marka tusaale ahaan towerkan waynaga sheegnay mobilka waynu sheegnay mobilada waynu sheegnay sida loo sameeyo mainly waxa sameeya mobilada shirkadaha marka la soo saarayo manufacturer simply waa la taskarayn karaa marka haddaad eegtaan waxa la yidhaahdo ICNIRP standard ICNIRP waxa weeyaan waxa la yidhahdaa waa standard for non-ionizing radiation wax noocaasa la soo gaabiyey waxaad ka ogaan kartaa limityada loo baahan yahay macnihii inteebaa saxa inteebaan sax ahayn waxyaabahaasaad ka baaran kartaan waxa kale oo iyaduna safe distance waxaa jira tusaale ahaan haddii towerka ay anteenooyin badan ku xidhan yihiin iyo haddii ay anteenooyin yari ku xidhan yihiin iyadana measurementku kala duwanaanaya distanceka la doonaya loo jirsadaana way kala duwanaanayaan waan iska dedejinaya su-aal kaloo muhiima halkan ku haynaa iminka tusaale ahaan waxaad maqasheen in badan iyadoo la leeyahay ama aad maqashay ama aad aragtay iyadoo la leeyahay waan iska dedejinaya su-aal kaloo muhiima halkan ku haynaa iminka tusaale ahaan waxaad maqasheen in badan iyadoo la leeyahay ama aad maqashay ama aad aragtay iyadoo la leeyahay ama qof leh gurigaygii tower ba laga ag taagay dabeetana waan iskaga guuraya ama gurigaygii waan iibinaya tusaale baa laga yaabaa qof baa laga yaabaa guri aad u jeclaa si fiican u dhistay in tower laga ag taago dabeetana uu gurigii sidii ku iibiyaba waa very common maxaad u malaysaa taasi talow sax ma tahay okay taa aynu hadda in yar aynu ku yaraha ka nabal ko waxaad ogaataa waxa laysla waafaqsan yahay yes emissionska towerka ka imanaya waa in la xadido oo macnaheedu hadday kuu dhow yahay towerka hadduu kuu dhow yahay sida caadiga ah emission waa in la xadido oo macnaheedu hadday kuu dhow yahay towerka hadduu kuu dhow yahay sida caadiga ah emissionska towerka ka imanaya way sareeyaan haddii uu kaa fog yahayna emissionska towerka ka imanaya way yar yihiin that's normal that's fine marka that's why qofka caadigii doonayo inuu towerkii ka fogaado ka guuro wuxuu isleeyahay emissionska towerka ka imanaya iska yareeyo ka fogow waa sax marka si loo eego laakiin waxa kaloo xisaabta ku jira oo ay tahay inaynu fahanno halkan marka la marayo waxa la isweydiiyey dood kalaa jirta haddaad baadhaan waad helaysaan dood kalaa jirta emissionska qofka bini'aadamka ku dhaca radiated emissionska qofka bini'aadamka ku dhaca ma waxay ka yimaadaan towerka iyo anteenooyinka ku xidhan bay ka yimaadaan mise waxay ka yimaadaan mobile phone oo mobile phone-ku dee haddaad towerkii ka fogaato iyo haddaad u dhawaato mobile phone-kaagii markasta uu ku agyaala jeebadu kugu jira towerka ka fogaato wuxuu isku dayayaa inuu energy badan diro si uu signal fiican towerkii ka fogaa uga helo laakiin markaa towerka u dhowdahay mobilku waxaa laga yaabaa energy-ga uu diraya inay yar tahay because signalka ka imanaya towerka ayaa xooga marka energy badan kuma bixinayo siduu signal u heli lahaa marka dhinac kale marka laga eego marka aad towerka ka guurtay aad tidhi waan ka fogaaday si aan isaga yareeyo dhibtiisa isaga yareeyo dhinac kale marka la eego waxa weeyaan mobilkaagi markuu towerkii ka fogaaday energy badan ama signal badan ama RF badan buu sii deynayaa si uu signalkii towerka ugu dhow u helo macnaheedu waxa weeyaan waxaad victim u tahay ama waxaad exposed u tahay ama waxaad isku kordhisayba inuu mobilkaagii RF radiation badan kugu sii daaya adiga qofka tahay ama waxaad exposed u tahay ama waxaad isku kordhisayba inuu mobilkaagii RF radiation badan kugu sii daaya adiga qofka ugu dhaweedee ay ku dhacaysana waa adiga of course marka intaa laga fikiro oo taa qudheedu ay tahay another ma garanaysaa issue
ayaa u baahan in xisaabta lagu darsado marka taa laga yimaado qodobka markaan soo gudubno waxaynu gebagabada u imanaynaa anoo yara dedejinaya somaliland waxaanaynu ka sheekeynaya compliance-ka iyo waxyaabahani siday yihiin halkay marayaan ma la bilaabay yes markii aan waxyaaba yara baarbaaday waxaan arkay 2 xeer oo aan aad ugu farxay oo wasaaradda website-keedaan ka helay 2 xeer mid waxaa la yidhaahdaa xeer nidaamiyaha ansixinta tayada qalabka isgaadhsiinta 2019 baa lasoo saaray haddaad eegto sharciyada haddaad akhrido soomaali bay ku qoran yihiin way fiican yihiin runtii maan islahayn halkaas aynu maraynaaba ismaan lahayn marka iminka haddaad u fiirsato kaasoo kale xeer nidaamyaha dhismaha goobaha isgaadhsiinta qodobka 14aad haddaad u fiirsato wuxuu mandate garaynayaa oo uu ka dhigayaa necessary in la isticmaalo ICNIB standardkii nimanka sheegaynay waxaa la yidhaahdaa heerka badbaado ee shucaaca maayadaha aan danamaysnayn qodobka noocaasa la yidhahdaa marka kaasoo kale dee waa wax fiican ba hadday wax bilaaban yihiin laakiin dee waa aad bay u yar tahay marka la eego informationka ku jira 2 xeer oo keliya tide ma aha wax 1%na maaha hawsha waa aad bay u yar tahay marka la eego informationka ku jira 2 xeer oo keliya tide ma aha wax 1%na maaha hawsha compliance-ka ama compliance industry-geenu u baahannahay in dalka laga hirgeliyo waayo waynu ognahay wax kastaba qalab electronic inaynu meel kasta ku isticmaalaa guryaha gawaadhida waxaasoo dhan waa in la jeegarayo inay compliant yihiin marmar badanna waad aragteen dood baa jirta oo dee in badan laga doodo oo la yidhaahdo dad soo cabanayo le towerkani dhib buu nagu hayaa dad shacaboo tusaale ahaan soo cabanaya oo iyagu le definitely towerkani dhib buu nagu hayaa way ku kalsoon yihiin inuu towerkani dhib ku hayo xagga kale haddana marka dooda laga galo dowladda iyo shirkaduhu definitely waxay leeyihiin no it's safe ama waxani ay qolo iska tidhaahdo totally waxani waa safe qolada kalena ay totally iska tidhaahdo waa problem waxa weeyaan markaasoo kale markay xaaladahaasi dhacaan waa in la cabiro oo samples la qaado sampleskaasi markaa waxay keeni karaan in la qiyaasi karo tusaale ahaan tower marka laga soo cawday dee waxa laga yaabaa inay dadkiiba saxan yihiin marka in la cabiro oo la ogaado la jeegareeyo waa sax in shirkadii un loo daayo lagu yidhaahdo wixiinu sax ma yahay maaha dee shirkaduhu iyagu way ganacsanayaan waa shaqadoodii ma odhan karaan dee dhib baanu dadkii u geysanay laakiin waa inuu jiro regulatory bodies ama cid madax bannaan xataa dowladda aan ahayn oo intay qiyaasto dabeetana dad khibradu leh qalabkii magaranaysaa sax ahaa la isticmaalo dabeetana inta la hagaajiyo inta la taskareeyo la yidhaahdo okay this is what we got actual measurementkaynu hele waa kuwan khibradu leh qalabkii magaranaysaa sax ahaa la isticmaalo dabeetana inta la hagaajiyo inta la taskareeyo la yidhaahdo okay this is what we got actual measurementkaynu hele waa kuwaynu u baahnayn magaranaysaa standardkaynu u baahnayn inaanu meet garaynaana waa kan maxaa u dhexeeya markaa sidaasoo kale loo gar qaado laakiin in badan dee doodaasi way soo noqnoqotay marka inaguna ma doonayna inaanu murankaa sii xoojino marka laga yimaado markaa 2 xeer dee wixii la xidhiidhayay EMI-ga oo dhan 2 xeer waxay la xidhiidhaan EMR-ta ama waxay la xidhiidhaan high power transmitters iyo waxaasay la xidhiidhaan mainly waxay la xidhiidhaan taawarada iyo waxaas laakiin dee EMI-dii oo dhan oo kale ma jirto safety-gii oo kale ma jiro environmental compliance-kii oo dhan ma jiraan marka waxaasoo dhan baa u baahan in dee la hirgeliyo I think intaasay iga dhantay mahad celinaynaa mawduuca muhiimkeed soo jeedisay intaanan su-aalaha furin waxaan doonayay inaan ana 2 yar qodob ku yaro darsado mid waad soo hadal qaaday oo waa beelka diyaaraddu markuu furan yahay kruugu wuxuu ku taliyaa inta badan in moobilada la xidho
oo taa anugu mar baan su-aal isweydiiyey aniyo mar kasta oo diyaaradda la raaco watan la leeyahay beelka markuu furan yahay ha la dabiyo moobilada oo ma flight mode la saaray maxaa ka dambeeya marka dib baan usii baadhay marka waxaan arkay research sheegaya inuu interference ka dhaxayn karo mobilka iyo systemka diyaaradda oo ah marka keliya tubeelku maxaa loo yaqaanaa uu iftiin bixinayo oo laleeyahay suunka xidha ama suunku la xidhanayo mostlyna waxay udhaxaysaa inta take offka iyo waa mid waxa kale oo iyaduna markii 5G-ga lasoo saaray ay ku dhacday meelo ka mida Maraykan maadaama oo 5G network-ga frequency-giisa uu ahaa frequency ku cusub wuxuu interference ku keenay qalab diyaaradda ku xidhan oo loo yaqaano altimeter altimeterku diyaaradda wuxuu sheegaa inta levelka dhulka ay u jirto marka wuxuu ogaanayaa pilotku hadduu daruuro dhex marayo dhulku intuu isagu ka sarreynaya ayuu sheegaysa marka markasta wuxuu ku xisaabtamayaa intuu dhulka ka sarreeyo marka waxaa dhacday in diyaaradihii degi kari waayaan intaasoo flight maraykanka la kansalo waa 2019kii baan jeclay mise 2020ga bilowgiisii marka waxaa dhacday in diyaaradii diversion lagu sameeyo wadamada kale ku xiga 2021 I think yes mise 2022 baan anu 20 marka waxaa dhacday in diyaaradii diversion lagu sameeyo wadamada kale ku xiga 2021 I think yes mise 2022 baan anu 20 baan moodayba marka wax kastoo cusub kolley saameyntaasuu leeyahay innagana qalabyada haddii la eego certificationkooda inta badan CE ba xagga daba kaga qoran moobilada oo kalena waxaa FCC oo ah Federal Communication Commission ayaan jeclayno Maraykanku leeyahay Yurubna sidoo kale European standard kale iyaguna leeyihiin kaama xasuusta hadda marka runtii aad baan kaaga mahad celinaynaa mawduucaas tiimkay nala jooga intaan wejigooda iyo magacooda garanayo waxay nala joogaa team aviationka u badan oo madaarka Hargeysa 2 nin oo ka shaqeeya Saalax oo berbere isna jooga Cabdikhaliq iyo Saki السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انجينير محمد عالي علم سوتر aad u mahadsan tahay waqtiga siisay iyo sida fiican ayaad soo jeedisay mawduucan aad muhiimka u ah engineer Khadar oo isaguna soo organize gareeyay hawshan iyo asxaabta kale iyo injineerada da'da yar iyo ragga badan iyo hablaha ku jira dhammaantiin waa mahadsantihiin kule horta waa mawduuc aad iyo aad u muhiim ah sida loo qoro iyo marka dalkeena la joogo iyo sida loo fuliyaana way kala yar durugsan yihiin anigu intaan ka warqabo kulley sida maxaa cali sheegayna qaybtaa inta badan environmentka ciidamo ma egto sidoo kale waxaan kaloo la eegin qaybta safety-ga marka compliance laga hadlayo dee dadkii waxaan ka shaqaynayay baa ugu horeeya horta inta badan war waxaan qalabkan laga shaqaynayaa uu leeyahay sidoo kale waxaan kaloo la eegin qaybta safety-ga marka compliance laga hadlayo dee dadkii waxaan ka shaqaynayay baa ugu horeeya horta inta badan war waxaan qalabkan laga shaqaynayaa uu leeyahay ma waafaqsan yahay macnaha standardskii badbaadada ee qofka badbaadinaya ka shaqaynaya marka inta badan xagga qaybaha waa hooseeyaan waa jiraan in xeerarkaa mar la sameeyey laakiin uun wax commitment ah oo lasii joogteeyey maaha haddii aan in yar ku daro inta badan maadaama aan u badannahay electron waxaa loogu xidhaa wax loo yaqaano fat oo waxaa la yidhahdaa factory acceptance test baa la mariyaa marka inagu taa way hooseysaa iyada laftigeedu oo shirkadaha waaweyn ee waxooda ilaashanaya mooyaane inta badan dowladdu kuma xidho qaybahan quality controlka iyo waxaas kuma xidhaan in qalabkan electronicska ah ee soo degaya ama dalka soo gelaya ama ha yaraado ama ha waaweynaadaan gaar ahaan qalabka waaweyn ee maxaa ismata ka hadlayay ee tawarada lagu xidho maadaama in badan dee tawaradan kusoo jiray qalabkuu soo degaa una waa la cashuuraa una inta badan lama weydiiyo faadkuna waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ah
inta waxa weeye injineer maxamed sheegayay allahumma salli ala maxamed compliance kaas oo dhan oo test uu ku jira oo marka faadka la eego faadku waa certificate weeyaan certificate-ka uu wato qalabku wato ayaa muujinaysa inuu qalabku istanaanayo heerarkii u yaalay dalku lahaa ee qaranku lahaa marka waxba ayaan kasii dhabqin maxamed baa si wanaagsan u sharaxay waxaan uga baxayaa uun khiyaarta kale iyo sidii wixii su-aalaahee waxa weeyaan ay hayaan ay waxa weeyaan injineerka ula wadaagaan aad baad u mahadsantihiin mar labaad waa idin salaamaya okay haddii wax su-aal mahadsanid salax that's good waanu iminka tastiyada aanu samayno combanigeyga faadkaas waa ka mid marka faadkaasi waa factoryga waa tastiyadu aad bay u badan yihin marka compliancekii waxay hoos yimaadaan waxa la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa sfat marka guud ahaan client science tests oo iyaguna additional marka marka la sameeyo faadka iyo waxaasoo dhan ayay compliance ugu dambeeyaan marka that's very important waa qalabka waaweyn tusaale ahaan iminka satcomko kale satellite terminaladii waxyaabahaas yes way u baahan yihiin sfatka way u baahan yihiin ama fat testigaas okay aad baad mahadsantihiin wixii su-aal aynu geli doonaa haddii ilaahay idhaahdo su-aasha koowaad aniga kolley si simbala usoo jeedin oo waxaan odhan lahaa rf mitarada iyagoo kookooban oo portable ma la helaa oo personally ma loo soo iibsan karaa okay good one that's a good question waa la heli karaa iyagoo portable la heli karaa kambaniyo kala duwan baa sameeya I think haddaanan kambaniyo kala duwan baa sameeya I think haddaanan ilowsanayn inaarta malaa qaar laga jira waa la heli karaa qaar weliba waxaa la heli karaa qaar waxaa la heli karaa ilaa anu mar baan baayaca xataa oon yaro raadraadiyey quotationo marka ilaa 8,000 10,000 waa lagu heli karaa qaar $10,000 oo lagu heli karaa qaar magaranaysaa portable oo fiican oo gacanta lagu qaadan karo oo dabeetana wax badan cabiri kara marka haddii tusaale ahaan inaga qudhayno haddii aynu samayno koox qof waliba uu tusaale ahaan $500 $1,000 contribute gareeyo aynu meel magaranaysaa ku urina account tusaale ahaan dadka maybe dad lacag haystoo kalena aynu wax ka qaadno ahaan $500 $1,000 contribute gareeyo aynu meel magaranaysaa ku urina account tusaale ahaan dadka maybe dad lacag haystoo kalena aynu wax ka qaadno aynu 10,000 ama waxaa isku geyno I think waynu heli karnaa qalab noocaas oo kale ah dabeetana xataa waxaynu ku samayn kari lahayn researchaynu kaga samayn kari lahayn dalka oo tusaale ahaan meelaha qaar intaynu tagno ayaynu eegi lahayn radiationadan meelahan ka imanaya is it compliant inagoo isticmaalayna dee ma lihin inagu standards kaara laakiin international ones inagoo isticmaalna tusaale ahaan icnib iyo kuwa lamidka ama FCC ama whatever marka way jiraan yes waxaa kaloo jira magaranaysaa frequencyada specific frequencyada doonayso waxaa la isticmaalaa iyagana waxa la yidhaahdo waxa la isticmaalaa EMI receiver ama spectrum analyzer marka spectrum analyzer waxaynu heli karnaa isagana mid yaro oo tusaale ahaan markaynu towerka tagno haddaynu 900 megahertz aynu doonayno 900 megahertz baynu gelinaynaa dabeetana 900 megahertz frequencieskaas ayuu ina siinayaa magaranaysaa field strength ayuu noo sheegaya waxaa odhanayaa emissionska signalka ka imanaya waa intaas marka yes waa la heli karaa qalab badan okay waayahay wax su-aala hadday jiraan qofku ha soo codsado mayga ha soo codsado oon ka qabanayna haddii ilaha idhaahdo su-aashaanu furaynaa su-aashaasi markaa kolka looga jawaabo kabacdi qofka kale ku xigeenna u yeedhayna haddii ilaha idhaahdo anaa ka maqan lahaayo
su-aasha waxa weeyaan yow electronicskan inta badan innaga dee suuq uu iska furan yahay mid Vietnam lagu soo sameeyey weliba gaar ahaan electronicskan yaree moobiladan la isticmaalo iyo iPadadan iyo waxaas oo dhan weliba gaar ahaan electronicskan yaree moobiladan la isticmaalo iyo iPadadan iyo waxaas oo dhan qaar valuegooda lamaba eego dadkuna aad bay u isticmaalaan in walow aad muddo iminka in yar inkastoo dad dee boqol number aad u yar yihiin in airboardskan iyo waxa la isticmaalo oo ka yar saifsan muxuu ahaa inkastoo iyagii laftigoodu dee ay iyaga laftigooda ay u baahan yihiin la hubiyo marka tusaale ahaan quality controlkii oo kale siday u muxuu ahaa ay u hubin karaan moobilo tusaale ahaan kambani ba 500 ama 1000 moobil buu soo dejiyey oo kala item oo kala duwan kunkii moobil waxaa loo baahan yahay in la hubiyo sar valuegoodii ma yahay accepting levelkii aynu aqbali karinay ama 2ga ahaa ama 1.6 ahaa ama 1.7 around meelaha ku ciyaarayay inta badanna waxaan ogahay qaarkood inaanay lahaynba oo haddaad la baaro aan lagaba soo helin marka quality controlka oo kale dalkii oo kale siday u hubinayaan Okay, that's a really good question. Warren, siyaabo kala duwan baa loo hubin karaa. Tusaale ahaan oo kale innaga wuxuu dee qalabku way soo degaanoo qalabba ma samayno. Marka qalab waliba way soo degaan. Marka dee markay soo degayaan baa samples baa la qaadi karaa. Tusaale ahaan markuu containerka yimaado waxaa joogayaa aniga kule regulatory bodies baa jira. Regulatory bodiesku samples bay qaadi karaan. Waxay leeyihiin xafiisyo supplierka qofka wax tusaale ahaan qof ganacsada baa China ka keenaya qalab electroniga waa inuu ogolaansho ka helaa inuu qalab noocaasa keenayo waa inuu ka helaa regulatory bodies tusaale ahaan oo kale Mareykanka iyo Yurub walibana waxay kaga sii duwan tahay dalalka kale waxa laga yaabaa inaan waxyaabaha immunity-ga ah aan la cabirin tusaale ahaan adkaysiga qalabka inuu qalab kale interference-kiiska iska xajiyo inaan la cabirin baa laga yaabaa adduunka laakiin Yurub oo kale iyadu waa meesha keliya ee xataa qalabka inuu emissionskiisu hooseeyaan oo keliya lama cabiro laakiin waxaa la eegaya xataa inuu qalabkaasi emissionska kale ee qalabka u dhow ka iman doona inuu iska xajin doono marka immunity tests baa la dhahaa marka marka inagoo kale ay ka imanayaan dee dibad ay ka wada imanayaan qalabkeena electronicsku dee waxa markuu ganacsada keenayo waa in ganacsaduhu marka laga yimaado inuu ruqsad ganacsi leeyahay waxa marka yimaado laakiin waa in regulatory bodieski u qaabilsanaa safety-ga EMC-da ama EMI-ga waxaasoo dhan waa inuu notify gareeyo inuu qalab noocaasoo dalka keenayo tusaale mid yihiin marka 20kii mid haddii la arko dee waa la sheegaraynaya haddii 20kii mid qaar ay isweydaar jiro markaa waxay u baahan tahay in aad loo sii baaro haddii laakiin isku wada mid noqdaan yes it's fine waa la aaminaya marka waa samplesun ma aha dee every device in la eego qasab maaha lamana eegi karo it's tiring haddii tusaale ahaan qalab aynu inagu halkan ku samayno intaaba waa la samaynaya samples waa la qaadayaa yes haddana waxa kale oo la sameeyaa waxa la yidhaha random checks oo tusaale ahaan saalax baa wuxuu leeyahay shirkad samaysa ma garanaysaa wifi routerskay samaysaa marka way registeraysan tahay wix kasta waa la eegi laakiin waxaa laga yaabaa sanadka mar ama 2 jeer in la jeegareeyo oo intuu si random suuqa loo tago wifi routerka baqaarka intuu si random suuqa loo tago wifi routerka baqaarka ku xidhan la yiraahdo waan yara jeegareynaa dabeetana requirementskii loo baahnaa laga jeegareeyo marka haddii ay baasaan oo kale ama ay sax yihiin dee sorry haddii laakiin ay magaranaysaa cilada ka soo noqdaan ama wixii loogu talagalay aanay buuxin haddana checkiska waa lasii badinaya waxaa laga yaabaa marka dambe haddii la ogaado inaad wax khaldayso dee businesskaba in lagaa xidho waa suuragal hagaag inaad su-aasha uu ka jawaabay baan rajeynaya maxamed waxaan u yeedhi doonaa axmed nuur
oo inagala jooga isna injineerada madaarka Hargeysa. Soo dhaw Axmed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad bad mahadsantihiin injineer Khadar iyo injineer Maxamed Samatar iyo injineer Saalaxba Maxamed Samatar waxa noogu malagay jaamacadda Gulis kulley anuu su'aalun baan qabaa su'aasheedu waxa weeyaan inkastoon mar dambe aan soo galay waxa Timur uu sheegay uu lahaa waxa jira limitation u dhaxeeya 1.6 ilaa 2 oo ay mawladu leeyihiin oo qaarkood laga helo bal goobaha laga heli karo oo uu moolku ka leeyahay oo kala bilinoyra tilmaamtan jeclaan lahaa codsina waan wataa horta markii ugu horeysay space noocan oo kale aan soo galay oo arrimo noocan lagaga hadlayo marka waxaan jeclaan lahaa injineer Khadar iyo Saalax iyo Maxamed ba haddii qaar noocan oo kale oo aad noo qaban karasaan insha Allah bal noo soo badiya halkan oo kaliya ugu deynini insha Allah noo soo badisaan baan jeclaan lahayn marka su'aasheedu waxa weeyaan waa tii hore bal limitation ka aad noo magacawday bal haddii mawlada laga heli karo xag gooba laga heli karo meel specific magacawday bal haddii mawlada laga heli karo xag gooba laga heli karo meel specification oo gaar ah oo laga heli karo bal noo sheeg insha Allah aad maasan waad mahadsantahay Axmed laakiin su'aasha ma fahmin bal yara faahfaahi waxa jirtay mar aad lahayd waxa jira sarkiyo u dhaxeeya 1.6 ilaa 2 oo haddii inta ay ka sareeyaan qofka jirkiisa wax yeeli kara aad lahayd oo mawlida qaar laga heli karo oo mawladu ay leeyihiin baad yes waan ku fahmay ha okay good markaan ka hadlayay waxaan ka hadlayay wax la yiraahdo EMR marka waxaan ka hadlayay wax la yiraahdo SAR specific absorption rate marka waxaan ka hadlayay wax la yiraahdo EMR marka waxaan ka hadlayay wax la yiraahdo SAR specific absorption rate marka waxaan lahaa electronicska kuwa loogu talagalay in marka la isticmaalayo jirka bini'aadamka ay 20 centimeter iyo wax ka dhow u jiraan waxa loo baahan yahay inay maraan test la yiraahdo specific absorption rate marka mobilada halkaas ay soo gelayaan specific absorption rate wax kala ma sheego wuxuu sheegayaa kaliya amount of radiate RF energy-ga uu soo nuugayo cellska jirkaaga waayo dee qalabkii uu dhow yahay marka kaas la cabiraya marka kaas waxa loogu talagalay standard jira FCC oo kale oo Mareykana waxay leeyihiin 1.6 watt per kilogram marka haddii waxa la simulate garanaya marka la taskareeyo waxa la simulate garanaya madax qof bila aadan dabeetana mobilkiina waa la agdhigay waa sidii qof ku hadlayo kala laga dhigay dabeetana mobilkii tusaale ahaan qof kala la garaacaya marka waxa loo ekeysiinayaa testiga marka la sameynayo sidii qof telefoon ku hadlaya marka xataa madaxan bila aadamku madax bila aadamo sax maaha lagu taskareeyo wax laakiin waa sample waxa la aaminsan yahay waxa jirka bila aadamka wax cellska bila aadamka metalo kala madax bila aadam laga dhigaya marka dee labka lagu sameynayo marka la cabiro marka qalab kasta la isticmaalo it's a complicated test umana malaynayo in meelo badan oo adduunka lagu sameeyo laakiin dee shirkadaha telefoonada sameeya way leeyihiin tusaalahaan Apple oo kale iyo kuwaas way leeyihiin marka testiga la sameynayo marka testiga sambalka la qaado measurementka la sameeyo Mareykanku wuxuu leeyahay telefoonkaasi si uu Mareykanka loogu dhex iibin karo ama qof Mareykan ah Mareykan jooga uu isticmaali karo ama hadhow certificate of compliance ay Mareykanku u siiyaan mobilada in dalkooda lagu iibiyo waa in uu readingkoodu waa inuu noqdo 1.6 watt per kilogram dalal kale oo ay ka mid yihiin Europe tusaale ahaan oo kale EU-da iyo magaranaysa ICNIB standard ICNIB-na waxa weeyaan waa international standard
Europe iyo Maraykan iyo cid waliba way isticmaali kartaa kaasina wuxuu leeyahay marka testiga noocaas measurementka noocaas marka la sameeyo waa in readingka kuu soo baxa waa inaanu 2.0 watt per kilogram waa inaanu ka sarreyn RF energy-ga ay seliska madaxaagu soo nuugayaan waa inaanay intaa dhaafin hadday intaa dhaafaan oo tusaale ahaan 3 noqdaan ama 5 noqdaan ama 10 noqdaan macnaheedu waxa weeyaan jidhka bini'aadamku mobilka qof kasta oo ku hadlaya oo isticmaalaa wuxuu helayaa RF energy aad u badan oo ka sarreysa intii loogu talagalay dan markaa dhibaato keeni karaa mobilkaasi marka waa inaanu intaa dhaafin marka la taskareeyo ee qalabkii la ogaado inuu intaa yahay ama ka hooseeyo yes waxa la leeyahay qalabkaas uu baasay certificate baa la siinayaa Europe baa lagu iibin karaa Maraykan baa lagu iibin karaa meel kasta oo lagu iibin karaa haddii aan su-aashaada saa u fahmay waan kusoo yara celiyay in yar baan anigu ku dari lahaa Axmed halkaa haddaad tusaale ahaan iPhone oo kale haysatid mobilkaaga settingskiisa gal generalka sii gal waxaad ka sii doorataa legal and regulatory dabeetana RF export ayaa ugu dambeeya oo aad RF arki doontaa RF-kaasaad halkaasaad ka dhex arki doontaa markaasi informationkii oo dhan markaa waa inuu mobilku tusaale iPhone originally waa Maraykan marka waxaad arki doontaa 2 watt per kilogram meesha ku taalo iyo even Europe in lagu isticmaali karto 1.6 laftiisa waad ku arki kartaa Europe baa 2 watt per kilogram Maraykana waa 1.6 watt per kilogram yes laakiin khadame waxaad xisaabta ku jira tusaale ahaan oo kale talalo badani maba laha requirement shirkadu imika requirement kan imika 1.6 waxa le US marka US marka mobilka la geynayo shirkadu way ku qasban tahay in ay magaranaysaa dee shuruuda comply garayso laakiin dalalka aan shuruudba lahayn dee tusaale ahaan waxa laga yaabaa inaanay magaranaysaa shirkadu aanay iskuba hawlinba waxaas kaba boodaan baa laga yaabaa okay absolutely waa saas waa hagaag aad baad umahadsantahay adaa mudan Axmed waan helay aad baad umahadsantahay waan helay waa sidaad sheegaysa weeyaan toos baan u galay marka goobtaas uma baahna inaan ka ogaado aad u mahadsantihiin iyo injineer maxamed odhan allaynoo badiyana sidoo kale insha Allah waa diyaar inta awoodeenu yahay insha Allah wixii technology la faa'iideysan karo waan ka faa'iideynaynaa insha Allah haddaad maxamedow soo wax ku dari kartid ama saalax waan soo xidhaynaa insha Allah okay anigu waxaan kaga baxayaa waxa weeyaan Axmed baa isaguna comment ayaa lahaa inoo badiya ma anigu waxaan isleeyahay horta injiinkeenu waxa weeyaan waa khadar hadduu inoo badiyo annaguna iska diyaar baanu nahay markaa khadar inaanu inaga daalin baa muhiima diyaar iminka khatar baan noqdo weliba YouTube channel aan beri hore lahaan jiray baan dhaska ka soo tumay marka codadkan iyo waxaan record gareynaa hadii la yiraahdo halkaas soo dhigi doonaa dadkana la soo wadaagi insha Allah